maalmihii ugu dambeeyay waxaa mareegaha kala duwan ee bulshada Soomaalidu ka wada xidhiidho si weyn looga dheehanayay fanaanadii weyneyd ee Maryan Mursal Ciise oo guud ahaanba macasalaameysay fankii Soomaalida ee muddada dheer ay ku soo dhex jirtay. Fanaanadan ayaa si weyn loogu yaqiinay heeso ka gooniya iyo kuwa la mid ahba hanaankii qaadiseed ee heesaha Soomaalida. Maryan Mursal Ciise ayaa fanka ku soo biirtay sida la sheegay dhowr iyo lixdamaadkii iyada oo ka mid ahayd hobolladii caan baxay ee waaberi hormoodka u ahaa. fanaanada weyn ee Faadimo Cabdilaahi Kaahin Maandeeq oo Banjir Media khadka telefoonka kula xidhiidhay oo iyada laftigeedu muddo haatan ku siman 18 sannadood fanka ka maqnayd ayaa iyadoo ku sugan magaalada London waxa ay sheegtay in ay Maryan Mursal Ciise soo wada mareen maraaxil kala duwan oo fanka ahaa. qaar ka mid ah bulshada Soomaalida oo la soo xidhiidhay Banjir Media ayaa ka hadlay arrinta macasalaameynta fanka fanaanada Maryan Mursal Ciise. waa si wanaagsan inuu ducaynaa fanaanada laakiin saan filayo fanku isaga daayay meydii waayo maxaad sawleeday wala waqtiga ay soo heesay way dhamaysay weyn bay imka noqotay waqtigeedu soo qaadatay ma ku arkaysay meelaha social media waqtigii xilliyadii xafladii loo sameeyay iyadoo fanka macasalaameynaysa ma daawanaysay waan daawad ka waran sideed u arkaysay si waan bay hadasho waxay tii anigu waan dhaqdhaqays jirnay si waan baan u jiray bay tiro Soomaalidan waadi jirayo heesa ay wax ku qaataan bay ahayd heesa ay yahaayeen already day imkana macasalaameeda ay soo duceeyay waa si wanaagsan aad iyo aad baad u mahadsan tahay magacaaga oo saddexan iyo halkaad ka soo hadlayso Masagal baa la yiraahdaa Masagal Maxamed baa la yiraahdaa waxaan ka soo hadlayaa aynaba Maryan Mursal ayaa dhawaanta waraysi ay siisay idaacadda BBC-da laanteeda afka Soomaaliga waxay kaga hadashay arrimo door ah oo aanay hore warbaahinta ula wadaagin. waa Maxamed Muuse, Banjir Media Production, Hargeysa.